militariga dalka Mali ayaa bilaabay in ay xabsiga u taxabaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirkiisa gaashaandhigga ee dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi waxaana talaabadan ay muujinaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ku yaala galbeedka Afrika. madaxweyne Bahanado, ra'iisul wasaare Mokhtar iyo wasiirkiisa gaashaandhigga Suleymani ayaa dhamaantooda lagu xiray xero militari oo ku taala duleedka magaalada caasimadda ee dalkaasi Bamako. xiritaanka madaxdan ayaa imaanaysa bilooyin kadib markii ay isla militarigan xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mali Ibrahim Boubacar. arrintan ayaa timid saacado yar kadib markii laba xubnood oo kamid ah militariga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shaandhayn lagu sameeyay kadib. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah xorriyadda loogu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi Mali. qoraal barta Twitter-ka la soo dhigay oo ku qornaa luqadda Faransiiska ayay diblomaasiyiinta qaramada midoobay iyo sidoo kale ku codsadeen in xasilooni laga sameeyo wadanka ku yaala galbeedka Afrika. arrintan ayaa timid kadib markii la shaaciyay wararka sheegaya in madaxweynaha ku meel gaarka ah dalkaasi Bahanado iyo ra'iisul wasaarihiisa ay ciidanka u kaxaysteen xerada militariga ee Keti oo ku dhow magaalada caasimadda ee Bokoma. talaabadaasi ayaa abuurtay cabsi xoogan oo hor leh oo ku aadan in afgambi labaad oo ka dhaco wadankaasi muddo hal sano gudahooda. ururka midowga Afrika iyo golaha dhaqaalaha ee dalalka galbeedka Afrika, midowga Yurub, Mareykanka ayaa dhamaantooda waxay cambaariyeen xariga waxa ayna dalbadeen in siyaasiyiinta sarsare ee Mali si shuruud la'aan ah lagu sii daayo. xariga mas'uuliyiinta ayaa yimid saacado kadib markii isku shaandhayn lagu sameeyay dowladda, taasoo sababtay in xilalka laga bedelo laba sarkaal oo ka tirsan xubnaha sarsare ee militariga dalkaasi oo ka qayb qaatay afgambigii sanadkii hore. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier